Audio Jungle. maamulka wili magaca kaliya ka yagleelanay galmudug ayaa xaaladiisu tahay allow sahal waxaana laga dhowr sugayaa doorashada dhawaan lagu madalsan yahay ee dib u soo celin doonta nidaamkii maamul ee burburay saddex mudane ayaa ku loolami doona jagada kama dambaysta ee galmudug Kamaal Xuseen Kuutaale murashaxa siyaasadda bisil ee tacliinta u saaxiibka ah ayaa u muuqanaya mid u cadcad ku guuleysiga baratanka maamulka xilkiisa lagu hardami doono bishana soo haysa ee galmudug maamulka galmudug ayaa u kala daatay si aan cid u micnayn karin kadib markii xilka laga tuuray Axmed Ducaale Kilaxaaf oo madaxweyne ahaa ahlu sunna oo xukuumadda galmudug horkacisay ayaa ku sugan magaalada looga arrimin doono galmudug ee Dhuusamareeb waxaa jirto kalsooni aan sal ballaaran ku fadhin oo u dhaxaysa madaxda ahlu sunna iyo kuwa dawladda dhexe hogaamiya Kamaal Kuutaale isfahanka kala dhaxaya ahlu sunna ayaa ka dhigaya mid haddaba si haysta kuraasta doorashada ay leeyihiin ahlu sunna ee 20ka mudana sidoo kale golaha kale ee wax dooran doono lagana soo xulayo deegaanada galmudug ayaa la dhacsan samafalladii had iyo jeer uu ka sameyn jiray Kamaal Xuseen Kuutaale geyiga galmudug taasoo sahli karta in uu helo kalsoonida kuraas maamulka ku hanto hogaamiyaha saxan labada murashax ee kale ayaa ah qudoodu kuwa howlo badan ka dhaxaya deegaanada galmudug lamana xaqiri karo Cabdiraxmaan Odawa oo ah siyaasi mugle balse waxa si hoose shicibku isula dhaxmaraya in ay jirto gacan shisheeye oo garabka ku sidata Odawa halka qoorqoor isaga ay iska caday in ay garbinayso dawladda dhexe si gaara madaxweyne Farmaajo Kamaal Kuutaale ayaa ah mid ku loolamaya wax u qabashada shicibka iyo deegaanka xilligii hore iyo hadda uu murashax galmudug yahayba dhawaan guddiga farsamada iyo maamul u sameynta galmudug ayaa soo saaray hanaanka doorashada maamulka galmudug ay u qabsoomi doonto waxa qabsoontay xaqiijinta odayaasha dhaqanka iyo xalinta khilaafaadka oo lambar 1 ahayd waxayna qabsoontay 19 December ilaa 23 December ee bishan aan ku guda jirno soo xulista golaha wakiilada dawlad deegaanka galmudug ayaa hadda lagu guda jira waxay soconaysaa 24 December wayna soo dhaafnay ilaa 30 December howlgelinta iyo dhaarinta golaha wakiilada ayaa laga dhigay 31 December doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada maamulka galmudug 4 Janaayo 2020 ayaa lagu beegay doorashooyinka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa iyana waxa ay dhacaysaa 9 January sanadka 2020 golaha wax dooran doona ee gacantooda ay ku jirto ayaha shicibka galmudug ma naqan doonaan kuwa garta murashaxa maamulka looga baahan yahay in uu hogaamiyo